waxaa xalay fiidkii magaalada hargeysa ee xarunta somalilan laga soo sheegay geerida allah u naxariista ee fanaanadii caanka ahayd ee khatra daahir cige kadib dhowr maalmood oo ay ku xanuunsaneyd cisbitaal ku yaala magaaladaasi. khatra ayaa ka mid ahayd fanaaniintii lagu jeclaa soomaalida, waxaana ay ka mid ahayd kooxdii waaberi, iyadoo waayadii ugu dambeeyey ku nooleed magaalada hargeysa ee caasimada somalilan. khatra daahir cige ayaa ku dhalatay hargeysa sanadkii 1957, waxaana fankeeda uu kasoo shaacbaxay isla magaaladaasi. jacaylka ay fanka u qabtay ayaa ahaa mid qof kasta uu garan karay intii ay ku jirtay waxbarashada iskuulka, waxaana la isla arkay hibada fanka xiliyada munaasabadaha oo ay iskuulka heese ka qaadi jirtay. intii ay ku guda jirtay waxbarashada, mar kale ayay indhaha iyo dhagaha daawadayaasha iyo dhegeystayaasha ka yaabsatay kadib markii sanadkii 1970 ay iskuulka kaga qayb gashay ruwaayad ay ardaydu jilayeen, waxaana isla sanadkaasi ay muujisay jiliin cod ku wacan dhegeysiga, qaab masraxeed wanaagsan oo qof weliba la ashqaraarayo, waxaana ay hantiday ama ay hantisay ee mucaashaqiinta fanka. waqtiga waxa uu isguraba khatra iyo sanadkii 1974 waxa ay si rasmi ah uga soo muuqatay ruwaayadii hobalada waaberi ee dab jacayl kariwa, waxaana heesteedii ugu horreysay khatra loo diiwaangeliyay ay ahayd heesta afka lagama sheegto adigoon jacayl arag, taasi oo ka mid ah heesaha ilaa maanta loogu jecel yahay heesaha khatra, oo ay si wacana ugu xadreysay codkeedii wanaagsanaa ay cajiibka ahna ay ku muujisay, welibana ay ka muuqato qaabka ay carcarka u ahayd iyo sida hamiga fog ay uga lahayd fanka. waxaana heestaasi curiyey abwaan maxamed cabdi weyrax. khatra daahir cige waxa ay dhexal siisay hibadeeda fanka in ay atiriisho ama gabadha koowaad ka noqoto ruwaayadii jiin jacayl oo ay ahayd mid ka mid ah ruwaayadaha ugu magaca weyn fanka soomaalida, sidoo kale ay ku jiraan heesaha loogu jecel yahay. waxaana sanadkii 1975 curiyey abwaan xasan xaaji cabdulaahi ganey, waxaana xusid mudan in heesaha ku jiray ay laxameyntoodii isugu tageen raggii ugu cadcadaa dhanka laxanka, oo ay ka mid ahaayeen axmed cali cigaal, siciid xaraawe, cabdi cali baclawaan iyo mulaxamiin kale oo ku lamaana. khatra waxa ay la heystay fanaaniinta ragga ee soomaalida kuwooda ugu magaca weynaa, waxaana sidoo kale hees u dhiibay abwaaniintii ugu curinta wanaagsanaa dhanka heesaha iyo riwaayadaha. khatra ayaa ku caan ahayd heesaha jacaylka, iyadoo qaaday heesaha loogu jecel yahay fanka soomaalida. abwaan weliba waxa uu jeclaa inuu hees u dhiibo, waayo waxay ahayd shaqsi ilaahay cod ku manaystay, sidoo kalena ay aada u jecleyd mucaashaqiinta fanka. waxaana si weliba khatra goor hore, gaar ahaana horaantii sanadii 2000 ay isaga baxday fanka, waxaana waayadii dambe ay ku nooleed magaalada hargeysa ee xarunta somalilan, halkaasi oo dhowaan ay ku xanuunsatay, isla xalayna geerideeda laga soo sheegay. dhowrkii sano ee ugu dambeysay waxaa fanka soomaalida ka baxaya fanaaniin aan saameyn aada u xoogan ku lahaa fanka soomaalida, islamarkaana bulshada ay aada u jeclaayeen. waxaana ku xusni karnaa fanaaniintaasi sanadihii ugu dambeeyay dunida macasalaameeyey, allah u naxariistay giddigood: seynab xaaji cali baxsan, faadumo cali nakruuma, cabdi cali baclawaan, cabdi tahliil warsame, jiim sheekh muumin, cabdikariim faarax qaarey jiir iyo sidoo kale fanaaniin kale oo allah u naxariistay. khatra daahir cige waxaa geerideeda si weyn uga tacsiyeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud, oo tacsi tiiraanyala u diray qoyska, qaraabada, bahda fanka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ay ka baxday hoballadii caanka ahayd ee marxuumad khatra daahir cige. madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuumadda ay kaalin weyn uga jirtay fanka soomaaliyeed, iyadoo door weyn ka qaadatay sare u qaadidda fanka iyo suugaanta soomaaliyeed oo ay ka ahayd tiirarkiisa. waxa uu yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan tacsi u dirayaa qoyska, qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ay ka baxday marxuumad khatra daahir cige oo magac iyo miisaan ku dhex lahayd bahda fanka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu alle u weydiiyey marxuumadda in hoygeeda uu ka yeelo jannatul firdowsa. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shacabka soomaaliyeed ee bahda fanka uga tacsiyeyey geerida xalay ku timid hoballadii caanka ahayd ee marxuumad khatra daahir cige. marxuumaddu ayuu ra-iisul wasaaraha xamse tilmaamay inay kaalin muuqato oo micno leh kasoo qaadatay horumarinta dhaqanka, wacyigelinta bulshada iyo fanka soomaaliyeed, oo ay ka mid ahayd fanaaniintii loogu jeclaa. haddii in yar aynu ku laabanno taarikh nololeedkeedii fanaanad khatra daahir cige, waxay qaaday 250 heeso. heesteedii ugu horreysay oo ay qaadana waxay ahayd hees wadani oo uu alifay cali ibraahim iidle, oo ahaa macalin luuqadda carabiga dhiga, khatrana macalin u ahaa. heesta waxa ay qaaday sanadkii 1972, waxaana heesteedii koowaad oo ay bilaabatay fanka ay ahayd heeskaasi
oo ay iyadu qani ku tahay. heesteedii koowaad waxaa miraheeda ka mid ahaa howl iyo dadweynow hantidoon wadaagnaa waa horumarkeena iyo hiddo aynu leenahay. Qatra daahir intaasi kagama aysan harin jacaylka ay u haysay fanka, waxay kor usii kacday markii ay dhiirigelin ka heshay dad badan oo ka mid ah bahda fanka, waxayna mar kale hees la qaaday hablo ay iskuul ahaayeen. saalax qaasiim oo aad ula dhacay codka inanta yar ayaa madaxii idaacadda reediyo hargeysa idris cigaal u sheegay inay qatra heesi karto, sidaa darteedna la qaato. iyada oo sidii waxa ay u dhaceen ka sheekeynaysa waxay tiri waxaa liigaya allah u naxariistay ismaaciil yare huriyo, sidoo kale saalax qaasiim iyo siciid xaraawo, waxayna yidhaahdeen hees kale ma qaadi kartaa. waxaan qaaday heese kale oo ay sahre axmed qaado. qatra daahir cige waxay si toosa fanka u bilowday sanadkii 1974. habeenada ka mid ah ayay qatra ka qayb gashay xaflad weyn, waxayna halkaasi kula kulantay fanaaniin kala gedsan, gaar ahaan fanaanka saalax qaasiim oo kabanka u garaacaya markii la sare kacay hees ay qaaday fanaanadaasi oo horey ay ugu luuqeysay sahre axmed. maalintaasi kadib qatra waxaa loo aqoonsaday fanaanad ka mid ah hobolladii waaberi, iyadoo isla sanadkaaba si buuxda uga qayb gashay riwaayado caan ah oo ay ka mid tahay dab jacayl karin waa oo ka mid ah riwaayadaha soomaalida kuwooda ugu caansanaa, islamarkaana ay iyadu ku luuqeysay. haddaba allah u naxariistay qatra daahir fankeedii iyadoo aan la soo koobi karin taariikhdeeda waxaanu milicsanay inta aanu ka koobi karayno, intaasoo weliba saxaafaddu ay si weyn inta badan u baahinaysay. inkastoo fanaanadu imika ay joojisay fankii, dhinaca diinteena suubanna imika ay milicsatay allah u naxariistay barashada diintana ay ku howlaneed, ayaa waqti xaadirkan inta badan waxa ay ku nooleed hargeysa, inta badanna qurbaha ay booqanaysay, iyadoo fanaanadu aad markaasi uga dayrisay nolosha qurba joogga oo ay ku micnaysay mid adag oo kasoo horjeeda dhaqanka soomaalida. waa meel aanad cidna ka garanayn dhibaatooyinka qurbaha nagu qabsaday, waxaa ka mid ah wax soo saarka iyagii oo yaraaday, ayay tiri qatra oo ka hadlaysay carqaladaha dhulka shisheeye ay kala kulmayeen soomaalida, islamarkaana mar sii horreysay ay iyadu arrintaasi ka warbixinaysay. haddaba allah u naxariistay fanaanaada waxaanu u rajeynaynaa in alla subxaanahu watacaala kitaabkeeda gacanta midig ka siiyo, sidoo kale dembigeeda uu dhaafo. waxaana sidoo kale ummadda islaamka ka codsanaynaa in ay u duceeyaan in alla uu jannada ka waraabiyo, dembigeedana uu dhaafo. fanaanadan oo muddooyinka ugu dambeeyay aada uga dhex muuqanaysay howlaha diinta, maadaama fankii iyo fuxshigii iyo waxyaabihii kale bahda fanka lagu yaqaanay gebi ahaanba ay isaga baxday goor sii horreysay, islamarkaana ay doorbiday in ay gacanta midig ku qabato diinta alla subxaanahu watacaalana ay toobad weydiisato. sida aynu ka helayno wararka qaar geerideeda iyo waxaa sababay, dadka qaarna waxa ay sheegayeen in qabow daran uu galay, sidoo kale oxygen ay haweeneydan ama fanaanadan iyadu lagu hayay inta cisbitaalka magaalada hargeysa ay ku jirtay, halkaasi oo xaaladeeda caafimaad lagula tacaalayay. qaar ka mid ah dad markaas iyagu kusoo booqday goobtaasi dhowaanahanba ay ku jirtay cisbitaalka ayaa sheegay in xaaladeeda caafimaad ay ahayd mid aada markaasi uga soo inta badan roonaanaysay, hase yeeshee haddana sida dadka qaar ay qabaan waxaa leeyahay fanaanadan xaaladeedu waxa ahayd mid markaasi allow sahal ah oo xanuunkeedu waa uu aada uga dareeyey. alla subxaanahu watacaala ayaynu leenahay inaga iyada dabadeed nama fitneeyo, sidoo kale dhammaan ummadda geeriyootay inta xanuunsan alla subxaanahu watacaala ayaynu cafis iyo musaabax u weydiinaynaa, dunuubtoodana inuu dhaafo, caafimaadna uu alle ugu bedelo. haddaba muuqaalkan haddii uu soo gaari karayo iminkana un aada nagu soo biirtay subscribe inoo saar, sidoo kale like-garee janalkan, la wadaag asxaabtaada si aynu u hanano asxaab aada u tiro badan. mar weliba waxaad naga heli doontaan muuqaale aada u tiro badan oo aynu ku saleynayno hadba bulshada waxyaabaha ka dhex taagan, arrimihii ugu dambeeya dhacdooyinka soomaalida, waxyaabaha si toosa u quseeya ama u taabanaya soomaalida meel weliba oo ay ka joogaan dunida dacaladeeda. dalkeena hooye waxyaabihii ka dhacaya oo si toos teelteel aanu idinkugu soo gudbin doono.